kulan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walbo ay joogtaan halkan waa gobonimo doon TV qodobada maanta barnaamijka ku maqli doontaana waxaa kamid ah qarax lagu dilay sargaal ka tirsan ciidamada hay'adda NISA ayaa la soo sheegayaa inuu xalay ka dhacay magaalada Marko ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Marko ayaa waxaa gaarigiisa loogu xiray حسن عثمان علي بيتوني تلي كشكله وكترسنا سراكيش النساء كاسو إسلا قبطة كنا فوايي نكان أيا لدشي قدوميه هوراء دقمة مركو محمد عثمان علي يريسو سرقال كعيدة مدى النساء كترسنا أيا لشيغي إنو عنك أها مقالة مركو إيديغانا دا هوستاقو sargaalkan ayaa xilligii la qarxinayay marayay xaafadda horseed ee magaalada Marko waxaana qaraxa sidoo kale ku dhaawacmay 3 askari oo kamid ahaa ilaaladiisa wali ma jiro war ku saabsan qaraxan oo ka soo baxay laamaha amniga gobolka Shabeellaha Hoose iyo maamulka degmada Marko